تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفداك والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. daawadayaashayada qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad joogtaan idil ahaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii fataawa. waxaa daawadayaal barnaamijkeennan inoogu martiya oo ka jawaabi doona su-aalaha aan usoo bandhigi doono ay dadweynuhuna soo weydiiyeen sheekh doctor xasan sheekh cali warsame. ka hor daawadayaal inta aanan u gudagelin su-aalaha oo aanan shiikhana ku wareejin mikrofoonka ayaan in yar isdul taagayaa asiira daatiya ama siifigiisii ama heerarkii kala duwanaa ee waxbarashadii shiikhan uu soo maray. ugu horreyn shiikha magaciisa waxaa la yidhaahdaa xasan, waxaana dhalay shiikha caanka ah ee ku dhaqan hadda magaalada burco sheekh cali warsame xafidahullah. waxaanu ku dhashay shiikhu magaalada riyaad ee boqortooyada carabeed ee sacuudiga sanadku markuu ahaa 1979 ama hijrigu markuu ahaa 1399. waxaanu ka barbaaray qoys cilmi leh xagga aqoonta culumta diiniga xilli uu ahaa aabihii arday diyaarinaya masterka ka diyaarinaya jaamacadda loo yaqaano jaamacad alimaam maxamed ibn sacuud alislaamiya. kadib markii waa aabihii oo ah aynu ka hadlayno sheekh cali warsame uu ka qalin jabiyey jaamacaddaasi, waxaa loo magacaabay inuu noqdo daaciya wasaaradda arrimaha islaamka ee boqortooyada carabeed ee sacuudiga, ilaa iyo haddana wuxuu ka yahay daaciya. shiikhu heerar kala duwan ayuu soo maray. insha allah ku dheeraan mayno se waxaan kusoo gabagabeynaya inuu shiikhu jaamacadda loo yaqaano aljaamica alislaamiya ee ku taala almadina almunawara inuu ka qalin jabiyey kuliyadeeda la yidhaahdo kuliyat alxadiid alshariif wadiraasaat alislaamiya oo uu ka qaatay darajada la yidhaahdo PhD ama doctora. sidaa awgeed waxaanu ugu yeeraynaa shiikha sheekh doctor xasan sheekh cali warsame, oo runtii aanu aada uga mahad celinayno, aanu doonayno inuu barnaamijkan joogtayno ugana mahad celinayno sida uu nooga ajiibay inuu ka jawaabo su-aalahan. ugu horeyn shiikha inta aanan bilaabin ayaan kusoo dhaweynayaa TV-ga Samsat. sheekh kusoo dhawow, jazaak allah khayr. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa baahda TV-ga Soomaali Saad, ugu horeeya akhuuna Cabdulmaalik, walaalkan Cabdulmaalik, aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. ilaahina waxaan inoo weydiinayaa barnaamijkan mid midho dhala oo aynu ku intifaacno guud ahaan inuu ilaahay ka dhigo. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. jazaak allah khayr. daawadayaal waxaan idin xasuusinayaa insha allah idinkuna intuu barnaamijka socdo inaan soo qori doono canaawiin meel aad noogu soo hagaajisaan su-aalaha aad ka dheehan doontaan shaashada iyo lambaro aad kala soo xiriiri kartaan, su-aalihiina kusoo sheegi kartaan si aanu xalqada soo socota aanu shiikha ugu soo bandhigno. shiikh, su-aasha ugu horeysa waxay la xidhiidhaa salaada jimce, waxaanay ka kooban tahay laba qaybood. weydiiyahani wuxuu na weydiinayaa ama ina soo weydiinaya uu leeyahay ma banaan tahay qofka khudbadda dhegeysanaya khudbadda salaada jimce diinta islaam ma banaan tahay inuu hadlo oo mathalan oo kale yani inuu nebiga ku saliyaan idhaahdee marka uu imaamkan khudbadaynaya uu nebiga xuso ma u banaan tahay, iyadoo aynu ognahay oo diinta islaamku ina farayso in la aamuso oo muxuu ahaye laqwiga la iska ilaaliyo. marka fi nafs alwaqt waxay diintu ina faraysaa in nebiga muxuu ahaye lagu saliyo ayayna faraysaa. marka imaamku marka uu khudbadaynayo jimcaha uu nebiga xuso ma ku saliyi karnaa? waa qaybta hore su-aasha. qaybta labaad ee su-aasha sheikh wuxuu leeyahay imaamku laftiisu marka uu yidhaahdo aamiin, marka muxuu ahaye aamiin ma la odhan karaa marka uu imaamku ducaynaya idhahde? yani waxa weeye salaadii jimce lafteeda markuu imaamku ducaynayo oo yani gabagabada khudbadda uu ku ducaynayo dadku ma odhan karaa aamiin oo halkaas hadal baa kasoo baxaya ma banaan tahay? su-aasha kuwaad wata. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
waxaa laynoo jideeyey qofku haddii khudbadda jimce ay bilaabanto oo khatiibku khudbadda bilaabo inuu aamuso ayaa laynoo jideeyey sida nabigu calayhi salaatu wasalaam inoogu tilmaamayo xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa qulta lisaaxibika ansid faqad lagawt walimaamu yakhtub imaamkoo khudbadaynaya haddii aad saaxiibka ku tidhaahdo aamus lawi baad samaysa halkaa culimmadu waxay ka qaateen in loo baahan yahay khatiibku inta uu khudbadaynaya in la aamuso waxaana laga aamusaya wax allaala wixii hadala hadalkaasi ha noqdo hadal lagwiya ama hadal inoo banaanaa ha noqdo in lagu hadla ma banaana laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama la inoo jideeyey xilli kasta oo nabiga la xuso in lagu saliyo la inoo jideeyey oo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka bakhiilka ah waa qofka xilliga la ixuso aan igu saliyin maadaama xadiidkaasi uu yimi sidee la isu waafajinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa xilliga khudbadu ay socoto maadaama uu kooban yahay waa in la aamusaa oo qofku aanu waxba ku saliyin xilliga khudbadu ay dhammaato inuu nabiga ku saliyo calayhi salaatu wasalaam culimo kalena waxa ay leeyihiin waana sida saxiixa ah ee xooga badan waa inuu si hoose ahaaneed naftiisa ugu saliya imaamu axmed ibnu xambal raximah llahu tacaala ayaa su-aasha lafteeda la weydiiyey waxau ihi yusalii fii nafsihi siran si hoose ahaaneyd ayuu nabiga ugu salinaya sidaasaana xoog badan in nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii lasoo hadal qaado in lagu saliyo laakiin codka aan lala jahrayn ama kor aan loo qaaday xagga ducada waxa weeye xilliga imaamku uu ducaynayo waxaa loo baahanya in la aamuso waayo ma hayno adilo tilmaamaysa xilliga la ducaynaya in aamiin la yidhaahdo ina amraysa ma hayno walidaalik daliilka tilmaamaya in la aamuso ayaynu ku camal falaynaa waa in la aamusaa sidaas ayaa xoog badan walidaalika waxaanu leenahay haddii khatiibkuu nabiga ku saliyo si hoose ahaaneed baa loogu salinayaa haddii uu ducaynayana in la aamuso ayaa waxa wey raajixa wallahu aclam waayahay way kala caddaatay labada masaladood tanna waxay la xidhiidhaa sheekh salaadii baa la xidhiidhaa iyo hadalkii baa la xidhiidhaa dabcan waxaa shareecada islaamku jideynaysaa qofku markuu hindhiso inuu yidhahdo alxamdulilah ka kalena uu ku yidhahdo muslimka kalena markuu qofkaas hindhiso alxamdulilah yidhahdo yarxamuka allah haddana uu jawaab kale ku celiyo yahdiikum allahu yuslim waaya weydiiyahani wuxuu inuu soo weydiiyey wuxuu leeyahay ma odhan karaa anigoo salaada ku jira oo salaada tusaale ahaan anoo salaadii ku jira ayaan hindhisayba salaadaasi ama waajib ha noqoto mid sunna noqoto waan hindhisa marka alxamdulilah ma odhan karaa maadaama diintii farayso inaan alxamdulilah idhahdo bismi llah su-aasha jawaabteedu waxa ay tahay qofku haddii uu tukanayo oo uu hindhiso saynu ogsoonahay waxaa qofka loo jideeya haddii uu hindhiso inuu alxamdulilah yidhaahdo qofka maqlayaana uu u duceeyo u yidhahdo yarxamuka allah isaguna uu u jawaabo uu yidhaahdo yahdiikum allahu wayuslixu baalakum ducadaasaa laynoo jidiyey haddii uu salaada dhexdeeda qofku uu ku hindhiso ilaahay ma mahadinaya mise mahadin maayo taa jawaabteedu waxay tahay ilahay waa mahadinaya taa jawaabteedu waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala waa mahadinayaa laakiin dadka maqlaya looma jideyn inay u jawaabaan oo ay yidhaahdaan yarxamuka allah waayo taasi waxay noqonaysaa hadal bay noqonaysaa hadal uu ku hadlayo hadalkaasi ducaba ha noqdo hadalka noocaasa lama ogola inka kale uu jawaabo u yidhahdo yarxamuka allah isaguna uu u jawaabo u yidhahdo yahdiikum allah wayuslix baalakum ducada inteeda dambe lama jidin laakiin inuu alxamdu lilah yidhaahdo ilaahay uu mahadiyo waxay ka mid tahay xuska ilaahay la xusayo nabiguna wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina hadihi الصalaa xadiidkii صaxiix muslim ku sugnaa ina hadihi الصalaa laa yasluxu fiiha shayء min kalaami الnaas inama huwa الtasbiix wالtakbiir waqira'aة الqur'an yacni salaadan waxa keliya u haboon ee munaasibka u ah waa in ilaahay loo tasbiixsado la weynaysiiyo subxaana allah ya allahu akbar iyo qur'aanka in la akriyo taxmiiduna waa la mid walidaalika culimadu waxay yidhaahdeen wax kasta oo ilaahay lagu xusayo oo sababtiisii la helay salaada dhexdeeda way banaan tahay xadiiskanna waa loo daliishaday xadiidkii mucaawiya ibn اlxakam asulami ee muslim ku sugnaa waxaa dhacday inuu masjidka soo galay nabigoo saxaabadii tujinaya kadibna waxaa hindhisay saxaabi saxaabada ka mida ayaa hindhisay alxamdu lilah buu yihi saxaabigan mucaawiye la yidhaahdo
حديث كينو سو غدبينيا ayaa wuxuu yiri yarhamuka Allah uu ducay kadibna saxaabadii ayaa eegay boodiyahooda ay garaaceen iyagoo doonaya inay xasuusiyaan in salaada lagu hado markii salaada laga baxay baa nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam salaada inaanay haboonayn in lagu hadlo waxaana la sheegay oo nabigu uga jeeday calayhi salaatu wasalaam hadalkaas uu leeyahay yarhamuka Allah laakiin ninkii alxamdulillah yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam kuma tacqiibin halka waxa laga qaat shay kasta oo cibaado ah oo ilaahay lagu xusayo oo sababtiisa salaada dhexdeeda laga helay inuu qofku uu xuska la yimaado waa banaan tahay waa qaacida culimadu xadiiska ay ka qaateen walidaalika waxaan leenahay qofku hadii uu hindhiso inuu alxamdulillah yiraahdo waa mid loo jideeyay laakiin in loo duceeyo yarhamuka Allah la yiraahdo tan noocaasi mashruuc maaha wallahu a'lam إنكم سؤال شاكو جرنا شيخ يعني مثلا كلا مبنانت هاي يقفكم مركو تحيات وقدم بيه كتير وكلا أما مركو سجود كتير وكلا إنه دعاء استبع أو هو مركو أدونكو إلهي يقولوا بيه أو يعني ما هي إلهي بريء أو حصة دعوين كبضا أنت لا شيء ويبنانت هاي قفك دعوين كوارد كنبي كسبنا عليه الصلاة والسلام هدي وتشعليسته أو دمبو ليه هاي أما دبا هايسته نبينا وحده عليه الصلاة والسلام حديث مسلم كسقنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء أدونكو إلهي وحو أقوله يا حلقة سجود سيهي واحد بضي سان دعاء بضيه ولذلك إن دعاء الله بضيه وقفك دعوينك وحفظ سيهي السنة يدعوينك لو باهيهي ودنتي ساء لبضوا يبنانتهي والله أعلم هل كان سؤال صوصة الشيخ وحاي لحريدا سكده أي لحريدا ونوين أيا وحو ليه سؤال نسوي ديه طبعا وحو سد مدن داود ديار سؤالها مركن وحسود ديار سي قدي دليرا وما شاء الله علماء ودعاته oo ka soo ururiyay dadweynaha markan ku dhaqan magaalada Burco idinkan insha Allah waan idin furi doonaa dadka naga daawanaya in aad sheekha su'aalaha jeceshiin soo weydiisan canaawinta shaashada hadda idinka muuqata sheekh ninkan wuxuu ka hadlayaa walaalkii aabihii buu ka hadlayaa wuxuu ku leeyahay dad waaweyn baan nahay aabo sakada ma bixiyo sakaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah shariicada islaamka ka mid ah ee la amray marka la isku xijiyay salaada iyo sakada marka ma banaan tahay inaan xoolaha wax ka cuno anagu weyn xoolahaas uu muxuu ahaayay uu aabe aanu sakada ka bixin ma noo banaan tahay inaan muxuu wax ka cuno bismillah seen ogsoonnahay zakadu waa arkaanta islaamka ee shanta ay kamid tahay shaanigeenu xaalkeeduna aad iyo aad baa loo adkeeyay nusuusta kitaabka iyo sunnadu ay u adkeeyeen adilo badan baana tilmaamaysa goodi aad iyo aad u adag cidii zakada bixin weyda بعض أهل العلمنا وحابي كتاجر إنه قفكو قالوا بيو ودين الإسلام كو كجبحيو سيدا صلاة دبا علماء بدنا يقول على سيان زكادنا إن لو قالوا بوايو قفكو هدي بخيل لما يوهنسي وبحن وايو الله سبحانه وتعالى وحاول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم آيات كلنا وحي هاي فإخوانكم في الدين هدي أي توبت كينان أو حوي الصلاة أي أوغان زكادنا أي بحيان دين تولا لا أي كتيه وحلقة فهمية هدي أي زكاة بحين ويا دين تئنا ولا الغلاء ولذلك بعض أهل العلم هلك وحي كقاتين زكاة إن لغو قالوا بي هدي سيداتها هاي وأكسونتهين وقف فعل كل عاي قال لما قف زكاة بحين ويا لكن سيدا علماء بدن كودو أي قبان زكاة إن لبحين ويا والذنوب تقوى وين بكمتها هاي قف كنا كو قالوا بمايو قف مسلمة أيو نقونيا لكن قودي آدي آدو آدك وسوغيو إلهي أدي وقو تلقلي حوليهس ما دام أو مسلم يهي وبدكيسو حولها إني منافعات صدان أو أي أبوهد لتعاملان أو أي عنتك عنان يوحي اللمدة تنوع سوحان لنا ما دام قف مسلم أو يهي حولها زكاة لقبحن وإنا وحكا عنان ويؤبنان تهي أو وح مشكلة أماله وحي ذنبي كرد سنة أبوهد با إلهي كلا حساب تميا يقو وحساب الدشود كما صارنا والله أعلم ما دام أنا يقو دي أنا تنفيذ قعنت كلها يقو أنا أود الله هنا بحيا ويا تنا سؤال وسؤال تناكر الله هريدا و نينك هذا ينين مهارات هيستا وكل دكان بان لا دكان كهدد كلا دوان با وحيجي يبسده أو يقو لفتو حوله هذا مالك كلا دوان كهلا
marka dadka iga iibsadaa waxaa ku jira dad ka ganacsada qaadka sigaarka marka anigu ma ii banaan tahay buu leeyahay ma ii banaan tahay qof qaad iyo sigaar sababtoo qaadka sigaarkana waa laga hadlay shareecada islaamka waxay ka qabto marka wuxuu isagu ka duulayaa iyadoo ay dad badani ay aaminsan yihiin qaadku inuu banaan yahay qaarna ay aaminsan yihiin inuu xaaraan yahay aragtidiisu wuxuu ka duulayaa inuu qaadku iyo sigaarku xaaraan yihiin marka ma ii banaan tahay buu leeyahay ninkaa xaaraanta ka ganacsaday oo aan ogahay inaanu meel kale ka ganacsan inaan wax ismanaafacsano anigu wax ka iibiyo lacagtiisa qaato oo lacagta aan ka qaatay waxay gelaysaa raasimaalkayga gelaysaa ma ii banaan tahay su-aashu waa saas masaladani waxay tahay masalo ahlulcilmigu ay ka hadlaan oo ku saabsan qofka lala macaamilayo ama wax laga iibsanayo ama wax laga iibinayo ama wax kuu hibeynaya wax ku siinaya ama wax kugu sadaqadaysanaya ama waxa weeya iyo wixii lamida ee mucaamalaada qofka noocaasa haddii xoolihiisu ay yihiin xoolo aanay banaanayn oo bimacnaa kasbi xaaraana kusoo galay sidee loola tacaamulaya tacaamulka loola tacaamulay ama qaabka loola dhaqmaya ma banaanaanaysa mise banaanaan mayso waxaan leenahay su-aasha laba xaalaa kasoo baxaya inaad hubto qofkaasi kasbigiisu 100% inuu xaaraan yahay dakhligiisoo dhan waad ogtay inaanu banaanayn oo inuu muxaram yahay baad ogtay ama waxaad ogtahay lacagtan uu hadda uu sito ama shaygan uu sito uu kaa iibinayo ama lacagtan uu sito inay kasoo gashay kasbi xaaraan inay kasoo gashay shaqo aan u banaanayn inay kasoo gashay haddii labada xaalo ay tahay waxaanu leenahay ma banaana inaad wax ka iibiso iyo inaad wax ka iibsataa toona ma banaana mid ku banaan maaha oo in lala tacaamulaa banaanaan mayso waa xaaladda aada hubsatay qofkaasi xoolihiisoo dhani inay muxaram tahay ama xoolahan uu haysto hadda uu haysto inuu yahay muxaram waxaaba laga yaabaa qofkii shay buu sitaa ama gaari buu doonaya inuu kaa iibiyo gaarigiina waxaabaad og tahay inuu hebel iska leeyahy oo gaariga in lasoo dhacay ama lasoo boobay ama lasoo xaday ama alaabtan in lasoo xaday baad ogta hadday sidaa tahay inaad la macaamisha ma banaan laakiin xaalka soo hadhay oo dadku ay u badan yihiin waxa ay tahay qof xoolihiisu ay u badan yihiin inaanay banaanayn waa sida qof aad ku ogtahay qaadka inuu iibiyo qaadkaad ku ogtahay inuu biilkiisu ka soo galo laakiin ma hubtid 100% waxa soo galaya inay xaaraan tahay waxa laga yaabaa lacagtan oo hadda kuula imanaya inay cidisiisay ama cidi inay usoo hibaysay ama in xoolo la siiyey ayaa laga yaabaa yani risqiga la siinaya kaas oo keliya ma ah qofka noocaas oo kale ah ee aadan hubin xoolihiisu 100% inay xaaraan tahay ee aad ku ogtahay oo keliya inuu qaad ka ganacsado waxaan leenahay culimada badankoodu way baneeyeen inay banaan tahay culimadu waa baneeyeen waxaana loo daliishanayaa axaadiis badan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii yahuudda ahaa uu kula tacaamulay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii anas ee saxiixaynka ku sugnaa nin yahuudiya ayaa wuxuu ugu yeedhay khubus iyo iidaam isbedelay oo waxa weeye qurmay oo xumaaday ayuu ugu yeedhay nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu cunay nin yahuudiya ayuu wax ka iibsaday oo waxa weeyaan rahan buu nabigu siiyey calayhi salaatu wasalaam alaab buu u dhiibtay waxaa la helayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaqamo badan ama bayc iyo shiro uu kula macaamilay dad yahuuda oo madiina la joogay ayaa waxa weeye la ogsoon yahay taana culimadu waxay ka qaateen yahuuddu sida la ogsoon yahay dad waxa weeye ka ganacsada ribada iyo waxyaabaha muxaramaadka baa lagu yaqaanay kasbigooduna sida uu u badnaa muxaram buu ahaa ilaahayna waa tilmaamay samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxt akaaluuna waa kuwa u cunid badan suxtiga iyo xaaraanta ayuu ilaahay ku tilmaamay maca dalika nabigu calayhi salaatu wasalaam waa la tacaamulay waxbuu ka iibsaday waxbay usoo hadiyadeeyeen way casumeen xoolahoodii buu cunay walidalik culimadu waxay ka qaateen inay banaan tahay qofka xoolihiisu ay u badan yihiin inay kasbi xaaraana ay kasoo gasho haddii aadan ogeyn waxaana inaanu banaanayn oo lidaatihi aanu muxaram u ahayn ama lacagtan aadan u ogeyn inay hadda muxaram tahay haddii aadan u ogeyn inay banaan tahay bay culimadu ka qaateen laakiin waxay yidhahdeen waxa fiican inta la awoodayo in la iska ilaaliyo waayo sida xadiidkii nucmaan ibnu bashir uu tilmaamayey
nabigu wuxuu alayhi الصلاaةu وaسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهma أمور مشتبهاaت xalaashuna waa caddahay xaaraantuna waa caddahay laakiin waxyaaba mushtabihaada baa udhaxeeya bacdu ahli cilmi waxay ku tilmaameen inay mushtabihaadka ku tahay walidalika in lagu degdega ma haboona laakiin asalkeedu waa banaan yahi wallahu aclam inta aanan mxuaha dabcan su-aasha ka tegin waxaa jirta oo badanaaba la arkaa waxyaaba mxuu ahay qofku og yahay oo dareemi karo uu yaqaano maalan qofkan inuu tuug yahay oo waxaad markaa qalabka uu wado wuxuu ku keenaya maalan tusaalahaan mobil aada u jaban oo lacagtiisu badnayd ama laptop oo aada u qaali lahaa adigana waad ku ogeed inuu ninkan mxuu ahay waana lagu xantaa ama waa lagu sheega ama waad ku aragtayba marka taas waxay hoos imanaysaa man malanaya dee in dadkaa la og yahay inuu tuuga yahay oo kale kaasina baabka waad ka hadasho waxaa tii mxuu ahay wa jazak allah waa tusaale fiican weeye oo masaladii tusaale u noqonaysa haddii qofka aada ogaato shaygan uu hadda wato ama uu kaa iibinayo inuu si xaaraana kusoo galay ama aada u malaysa mala haaliba sidaa la sheegay qofku inuu shaygan uu yahay shay lacag qaaliya lagu iibiyo hadda lacag jaban uu kaaga iibinayo uu yahay nin lagu yaqaanay inuu waxado oo tugnimo lagu yaqaanay waxyaabaha haddii laysu geeyo waxaa kasoo baxaysa inuu qofku ma hubo qaci maaha 100% maaha laakiin mala xoog badan in loo maleeyo alaabtana inay tahay alaab aan banaanayn oo xaaraana walidalika inaad ka iibsataa ku banaanaan mayso wallahu aclam way su-aashan sheekh waxay la xidhiidhaa waxaa soo qortay gabadh baa soo qortay su-aashan oo soo dirsatay waxaanay ka hadlaysaa runtii arrin ijtimaaci arrin bulshada oo badanaaba dhacdo waa guurka waxay leedahay inantani waxaan la heshiiyey wiil dhalinyaraa ayaan la heshiiyey ninkaas aan la heshiiyey ama wiilkaa dhalinyarada ahi wuxuu ahaa nin diin leh oo akhlaaq leh maasha allah muwaasafaad wanaagsan oo ay ku shabahday ku sheegtay inuu diin leeyahay ayay sheegtay kadib waxaan usoo bandhigay bay tidhi ehelkaygii qoyskaygii baan usoo bandhigay in ninkaasi isoo doonayo waan u sheegay kadib markii aan u sheegay way weydiiyeen waa qoladiisii ayay ogaadeen marka markay qoladii ogaadeen ayuun bay idhahdeen muxuu ahay ku diideen anaku qoladaa muxuu ahay hablama kala gursano marka arrinkaa ka warran bay ku leedahay alxamdu lilah waxa weeye masaladani kolley waa masale ijtimaaciya sidaa la sheegay oo aada u dhacda waana masaa'il badan bay isugu jirtaa oo culimmadu ay ka hadleen masale waxay tahay horta sida la ogsoon yahay nikaaxu weli la-aan ma ansaxo gabadha weligeedu waa inuu bixiyaa oo uu fasaxaa nikaaxuna sida nabigu tilmaamay min xadiidi abi muusa laa nikaaxa ila biwaliyin weli la-aan nikaax ma ansaxo taasi waa masalo geedka go-ana wey ta labaad haddii waxa weeye gabadhii weligeedii uu kasoo doono inantiisii uu weliga ka ahaa uu mas-uulka ka ahaa hibadeeda uu hayay haddii uu kasoo doono qof diintiisa iyo dabeecadiisa lagu kalsoon yahay oo la yaqaano in loo guuriyo ayuu nabigeena amray calayhi الsalaatu wasalaam sida uu tilmaamaya xadiidka abi xaatim almuzani ee imaam tirmidi iyo culimo kaleba ay saxiixiyeen oo nabigu leeyahay ida jaakum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuh haddii uu idin yimaado qof aada raalli ka tihiin diintiisa iyo dabeecadiisa fazawijuuh u guuriya baa nabigu uri calayhi الsalaatu wasalaam ilaa tafcaluuh haddaad saa yeeli weydaan takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid waxaa dhacaysa fitno weyn iyo fasaad weyn baa adduunyada ka dhacaya taasina waa xaqiiqa weeye oo waxaaba dhacaya oo ugu sahlanba in masaafa meeshii ay ka dhacdo oo ninkii loo diiday gabadhii u masaafaysto ama uu la tago ama waxa weeye wax xune ay dhacaan ayaa laga yaabaa walidalik nabigu calayhi الsalaatu wasalaam masalada waa inoo jidiyey laakiin meesha waxaa taalla guurka haddii la isguursanayo nasabku inuu isleeg yahay oo labada qof isku nasab ay yihiin oo xagga nasabka ay isku lod yihiin dadku qabaa'il wey qabaaishuna isku mustawayaad maaha meel kastoo caalamka la joogo waa dhaqan la yaqaano wey dadkuna isku tabaqaad maaha nasabka waxaa la yidhaahdo ma loo shardiyaa labada qof inay ku siman yihiin mise looma shardiyo waa masale culimadu isku khilaafsan yihiin laakiin sida saxiixa waxa uu yahay inaanay shardi u ahayn oo labada qof haddii nasabkoodu aanu isleekayn nikaaxu waa ansaxaya laakiin waxaa loo baahan yahay gabadha ehelkeedii maadaama ay xaq ku leeyihiin inay waafaqaan ayaa loo baahan yahay walidaalika waxaan leenahay gabadhii haddii waalidkeedu uu u diiday cid soo doontay
oo uu leeyahay dadkaasi inoo gayaan ma aha ama waxa weeye inama gayaan ama inalama mid aha iyo wixii la mida sabab noocaasa haddii uu keeno maadaama wax ay culima ay qabta uu yahay in loo tixgeliyo oo gabadhii ay ku sabirto oo waxa weeye waalidkii aanay u qacan dhaafin ayaa loo baahan yahay. ta labaad waxaa laga yaabaa asbaab kale oo u diidaysa waalidku inuu ninkaa gabadha siiyo oo ka fog diinta iyo dhaqanka gabadhu ay sheeganayso ayaa laga yaabaa waalidka inay u muuqdaan. oo mathalan ninkii waxaa laga yaabaa inuu yahay nin degaan ahaan kaba fog waalidkiina u dhibsanayo inantiisa dad aanu aqoon iyo qof aanu aqoon inuu siiyo aanu aqoon u lahayn. walidalik ta noocaasa waa laga yaabaa sabab ku kalifaysa waalidkiisu inaanay ubadkiisu ka fogaan, sida hadda caalamka ka dhacda in gabadh jinsiyad kale ah ama dowlad kale ah oo laga yaabo fiise iyo tegitaanka hadhow gabadhi laysgaadhaya u adkaanayo, waxaa laga yaabaa sababtaas inuu waalidkii ugu diido inantiisa qofka soo doona isagoo diin iyo dhaqan bale. walidaalika waxaan leenahay gabadhu haddii waxa weeye lasoo doono qofkaas diin iyo dhaqanba haba yeesho sida iyada ay ula muuqato, waalidkii haddii uu diiday ama weligii uu diiday inay waxa weeye iska sabirto ayaa loo baahan yahay oo aabaheeda ay ateecdo, waayo taacatul waalidayni waa waajiba. haddii ay dhacdo waalidku inuu mar kasta u diido ciddii soo doonta, taa waxaynu leenahay wilaayadii waalidka waa laga qaadayaa oo weliga ugu xigay ugu dhow ayaa weli ka noqonaya si gabadhii aan waxa weeye waqtigeeda looga lumin oo loo bixiyo. qofka ugu dhow ayay wilaayadii u gudbaysaa, laakiin taas waxay u baahan tahay waa mas'alo maxkamad iyo guddi inay gasho u baahan weeye. masaladaasna intaasaynu kusoo koobina wallahu aclam. sheekh masalada intayna ka bixin طبعا diidmadaas ayaynu ku guda jirnaa. مثلا waxaan ka soo qaadanaa inuu takaafo yani qabali jiro nasab yani muxuu ahaay waaba isu dhow yihiin ba labadan reer ba hal qabiil bay kasoo wada jeedaan oo yani mid ka fiican ma jiro, mid kastaaba waa laandheere waaye. laakiin inanka soo doonaya waa sabool, marka ma u banaan tahay waalidkii markuu arko kan aan geel iyo haysan xoolihii iyo doolarkii iyo aan dee khasnada u buuxinayn yidhahdo liyow cudur daara u keeno, ma u banaan tahay? xagga xoolaha eegay waxaynu leenahay culimada taalafteeda waa ka hadleen oo shardi ma u tahay xagga mustawaha maadiga in lagu siman yahay. culimadu waa ka hadleen waxyaabay sheegeen oo xitaa culimadu waxay ka hadleen shaqooyinka la kala hayo, ninka kabatolaha ninka warshadaha iyo farsamada ka shaqeeya inantiisa ma gaya, ninka farsamo yaqaanka ah ninka shiikha inantiisa ma gaya. culimadu waa ka hadleen, laakiin saynu soo tilmaanay sida saxiixa ah qofka dabeecad wanaagsan iyo diin wanaagsan haddii laga helo dadka muslimiinta dhammaantood gayaan bay isu yihiin, sidaasa waxa weeye xoog badan. laakiin waalidkii inuu inantiisa u axaysto ninka waxa weeye laban ama ka baxaya ama awood dhaqaalo leh waa wuxuu xaq u leeyahay, waa sabab waalidka ku kalifi karta inuu u diido. yaanay noqon sabab sharciya, laakiin waa xaq waalidka u muuqan kara inuu ugu diido. waayo waxay ogsoontii nabigu calayhi salaatu wasalaam markii faatima binti qays waxa weeyaan ay tiri laba nin baa soo doonay, mucaawiya ibnu abi sufyaan oo xilligii dambe khaliif muslimiinta u noqday, iyo abijahan baa soo doonay bay tiri. nabiga ayay la tashanaysa, nabigu wuxuu yihi amaa mucaawiya fasucluu kula maala lah. wuu la talinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yihi ninka mucaawiya la yidhaahdaa waa nin caydha oo aan xoola haysan, jahamna waxa weeye dumarka ayuu garaaca buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. idan halkaa waxaa laga qaadanayaa inay tahay sabab macquula oo qofka u keenaysa inuu u diido inantiisan inaan waxba haysan, laakiin nebigu kama wada in la sugayo ee wuxuu uga jeedaa un waa xaq bini aadamku ay leeyihiin. wallahu aclam. مثلا kale aan ka hadlayo مثلا kale qof awoodi karaya inuu biishaba mustaqbal, laakiin lacagtan aynu ka hadlayna waa mid jeebka odayga ku dhacayso aan shariicada islaamka meel kaga soo aroorin. muxuu ahaa in aabaha waxa la siiyo lacag geel la siiyo, shariicada islaamka miyay horta marka banaynaysaaba in masaladaaba aynu dul istaagnay. geel buu odaygani doonayaa, inantii ninkan wuu biilan karaa oo waxa weeye nolol kariim oo laakiin lacagtan anigu waan sheegay waa mid odayga jeebkiisa ku dhacaysa. waalidku inuu inanta uu bixinayo xoolo badan uu ku xidho yani wax haboon maaha, sharciga ilaahina kuma haboona, dhaqankana kuma haboona, dadnimadana kuma haboona. waayo dee inantu way ka weyn tahay qof lacag la dhaafsiisto oo la iibiyo, way ka weyn tahay, xaalkeedu waa ka weyn. taas waa mid. ta labaad
diinteenu waxay inoo sheegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ina axaqa maa ukrima calayhi arajul ibnatu ninka waxa ugu wanaagsan ee lagu sharfo ee wax lagu siiyo ee lagu qiimeeyo waa inantiis in waalidkii wax la siiyo oo inanta wax lagu siiyo waa shay aad iyo aad u qiimo badan wey laakiin ta aan habboonayn waalidku waa inuu shardi ka dhigto oo inantii oo xoola ku xidho ta noocaasi ma habboona laakiin wixii lagu siinaya waa gobonimo iyo wanaag bay noqonaysa wallahu aclam way wanaagsan maasha allah su-aasha ku xigtaa sheikh waxa weeye badanaaba qofku markuu doonayo inuu guursado ama maalan gabadh baa nin baa soo doonay gabadhaas iyadu ninkaa ma taqaano waxay doonaysaa inay ogaato akhlaaqiyaadkiisa diintiisa wuxuu yahay taariikhdiisii hore ninkuna gabadh buu doonaya wuu sahan tegaya markuu doonaya inuu guursado marka dad baa laga yaaba dadka ku hareeraysan inuu weydiiyo bal iga warrama gabadhaas oo yani inan kaleo muxuahay taqaano ama la jaarka ama la ehela ama la saaxiiba ka waran hebla marka qofkan su-aasha inoo soo qoray wuxuu leeyahay dadka ila tashanaya qof baa ila tashanaya ma u sheegi karaa qofkan uu igala tashanaya uu leeyahay ka waran ceebaha uu leeyahay may ku dambi baa inaan sheego mise waan iska amsaa waxaan idhahdaa hebel uu wanaagsan yahay masaladaas waxaan leenahay qofka haddii lala tashado oo guur lagala tashado iyo wixii lamida mucaamilo bayc oo kale ama business iyo ganacsi baa la wada gelaya iyo wixii lamida sideedaba qofku haddii uu qof kala tashado uu la tacaamulayo ama inan uu siinayo ama ula dhaqmayo waxa weeye way bannaan tahay qofka lala tashaday qofka ceebihiisa wax saameynaya inuu sheego ceebaha wax saameynaya inuu sheego waa mid bannaan wey taana waxaa u daliila xadiidka hadda aynu tilmaamaynay ee saxiixeynka ku sugnaa ee nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam faatima binti qays radia allahu tacaala canha nabiga ay u timi waxay tiri waxay soo doonay mucaawiyatu bna abi sufyaan iyo abu jahm labada saxaabi ayaa soo doonay ee igala tali labada keebaan guursaday nabiga ku tiri calayhi salaatu wasalaam nabigu ceebahoodii buu u sheegay labada nin ee loo magacaabay mid walba ceebtiisa ayuu u sheegay oo waxa uu ninka mucaawiya la yiraahdaana xoola ma haysto haddii xoolaha aanu haysan uu ku diidayo guurkiisa uu ku diiday nin xoola haysta ma ninka abu jahm la yiraahdaana waxa weeye daraabun linnisaa sida muslim ku sugan dumarka ayuu garaacaa walidalik in ceebaha la sheegaa waa banaantay nabigu wuxuu kula taliyey waxa uu ankixi usama laakiin waxaan kugula talinaya ninka usama ibn zayd la yiraahdo oo nabigu u jeclaa way banaan tahay ceebaha in la sheego laakiin waxa loo baahan yahay inaanay jaanis u noqon qofka kaga faa'iideysanayo oo uu ku fogaanayo ee inta ay wax ku xasilayaan ee waxa weeye muhiimka asaasiyaadka ah ee wax saameynaya waa in la sheego wallahu a'lam waayahay inoo soo daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijkeenii فتاوى waxaynu inoogu martiyo wali weynoo socdaa طبعا su'aalihiina weynoo hadheen fari kama qodna waa sheekh dr xasan sheekh ali warsame oo runtii aanu la joogno maktabadiisa uu ku leeyahay magaalada burco imkana gurigiisa ayaan ku sugannahay wa naqulu lahu jazaahullahu khayr su'aasha ku xigta sheekh waxa weeye waa nin ganacsada ninka ganacsada ah wuxuu leeyahay dukaan baan leeyahay meherad baan leeyahay meherada dadku lacagta ay dhiibtaan yani waxana waan iibiyaa lacagtoodana amaan ahaan bay yidhahdaan noo hay marka waxaan sameeyaa in xoolahoodaas oo ay badan yihiin xoolo badan baa lay keena inaan xoolahaaba ka faa'iidaysto oo aan muxuu ahaay ku dhaqaajiyo dhaqaale oo aan ganacsi geliyo ganacsiga kadib faa'iido iga soo gasho kadib marka ay yimaadaan anigu waxaan siiyaa raasimaalkoodii uma siiyaa anigoo aan faa'iidadii aanan kala qaybsan aanan inna ka siin marka may bannaan tahay inaan dadka xoolahooda ku ganacsado su-aasha jawaabteedu waxay tahay su-aasha sida loo dhigay waa baab lwadiica waa baabka amaanaadka ku saabsan allah subxaanahu watacaala waxau ihi ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha ilahay wuxuu idin amrayaa inaad ammaanooyinka waxyaabaha laydinku aaminay ee laydin dhiibtay inaad sideeda u gudataan oo aad ka soo baxdaan gudashada la gudanaya waxaa soo gudagelaya xilliga ammaanada lagu keenay inaad ilaaliso oo ammaanadiis oo sideediya inaad gudato xataa culimmadu waxay ka hadleen ammaanadii inaad isticmaasho oo aad ku ganacsatay iska dhaafe inaad waxa weeye meeshii qofku uu dhigtay ama aada isku ogeydeen inaad u dhigto in waxa weeye laga qaado meel kale la geliyo iyadoo bilaa-idana xitaa inay noqonayso xadgudub xoolihii lagu xadgudbay ammaanada qofku haddii uu ka soo baxo oo uu ilaaliyo isagoo ilaalinaya sidii loogu talagalay haddii ay dhibaata ku timaado aafo samaawi ay ku timaado ama laga xado ama siyaabo kale ay afa ugu timaado qofkii xoolaha waxba lagagama laha waa baabulamaana qacantiisuna
واقعا أمين وي وقف لا آمني haddii qofku uu lacagtii uu ku tasarrufo oo uu maamulo oo uu ku shaqaysto oo uu isticmaalo qacantiisu waxay isu bedelaysaa qacan magdhabaysa oo iyadu damaan bay isu bedelaysaa xataa lacagtii haddii ay baxdo waxa weeye waa lagu wada yeelanaya aafa samaawi haddii ay timaado oo dukaankii uu gubto waxa weeye lacagtii waa lagu yeelanaya walidaalik haddii ay dhacdo qofka lacag lagu ammaanaysto lacagtiina uu ku ganacsado ama uu ku shaqaysto horta waxaan leenahay shaqadaad ku shaqaysanaysaa kuma banaana faa'iidada kaaga soo baxdaana mid ku banaan ma aha waxaana loo baahan yahay ninkii xaqlahay haddii uu yimaado inaad u sheegto xoolaha iyo faa'iidadiisa inaad ogeysiiso ayaa loo baahan yahay qofkuna haddii uu u baahdo oo uu dukaan haysto oo lacag daa'iman loo keensanayo oo uu doonayo lacagtaa inuu manaaficaadsado uuna og yahay qofkaasi laga yaabo lacagtaa inuu sanad iyo ka badan ba uu ka maqnaanayo hal mid baa u furan inuu lacagtii dayn u bedelo oo qofku xoolihii aanu ka dhigin ammaano aanu ka dhigana uu yidhaahdo war lacagtanaad ii dhiganayso dukaankayga dhiganayso idaymi dabeedna uu daymiyo xukunkuna wuxuu isu bedelayaa baabudayn buu isu bedelaya marka waxay noqonaysaa xoolihii lacagtii loo dhiibtay inuu ku shaqaystaana waa u banaanaanaysaa waxa kaloo ninkii kale uu helayaa in xoolihii loo damaanad qaado oo haddii meeshii talaf iyo baaba uu ka yimaado in loo magdhabo ninkii xoolihii ayaa ka dhalanaysa sidaasaana maslaxadu ku qumaysaa laakiin haddii ay ammaano tahay in lagu ganacsadaa ma banaana wixii faa'iide ka dhashana in qofkii lacagta lahaa loo sheego ayaa waajibaysa wallahu aclam ما شاء الله سؤال شو قدام بيسا شيخ الوقت جو رنتي جباب سيدا ودماضي سؤال شو قدام بيسا وحوي سؤال قويس كوسابسن وحوي وين إيو سيجيد وحيقول هذا هاي سؤال شو سوق قرطي وحيقول هذا هاي سيجيد ومنين كيجو وحوي وبخيل وقعنا دقيقة وأنا نن العقله يعني ذو مال وبخيل هذا سوء إسراع صدق marka ma ii banaan tahay inaan xoolihiisa kala baxo wax isagaan yoogeen su'aashu saasi u dhigtay gabadho bismillah su'aasha jawaabteedu waxa ay tahay gabadhii ninkeedu hadduu xoolo leeyahay uuna yahay nin qacan adag oo wax ku filan aan siinayn ama kifaayadooda ah oo baahidooda daboolaya aanu siinayn jaanisna ay u helayso xoolihiisa badan isagoo aan ogeyn inay wax ka qaadato waxaan leenahay way u banaan tahay sida uu tilmaamayo xadiidkii hinda binti abi cutba ee saxiixaynka ku sugnaa nabiga ayay u timi calayhi الsalaatu wasalaam waxay tihi ina aba sufyaan rajulu shaxiix ninka abi sufyaan la yidhahda waa nin bakiila walaysa yucطiinii min الnafaqati ma yakfiinii wa baniya biilkana nama siiyo aniga iyo ubadkayga wax nagu filan nama siiyo ayaxilu lii an aakhuda min maalihi wahuwa laa yaclam ma ii banaan tahay xoolihiisa inaan ka qaato wax inaan ka qaato isagoo aan ogeyn nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam khudii maa yakfiiki wa baniiki bilmacruuf adiga iyo ubadkaaga ka qaata wax idinku filan ka qaata caad ahaanna waxay idinku filan yacni waxaan badbad isku jirin oo caad ahaan biilkiina ah ama kifaayadiina ah way idin banaan tahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu u baneeyay su-aashu siday u taalaana xadiidka ayay waafaqsan tahay laakiin waxaynu ku daraynaa nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam bilmacruuf ay bilcaada sida caadadu ay tahay waxaa laga yaabaa gabadhii wax caadada ka baxsan inay doonayso maadaama ninku lacag badan uu leeyahay biil waxa weeye badbadan oo isleedahay magaaladaba ugu biil fiicnow inay doonaysa ayaa laga yaaba oo ninku inta uu siinayo inay ku filan tahay iyada iyo dadka la midka ee la noocaasa ayaa laga yaabaa laakiin gabadhu ay doonayso badbadis baa laga yaabaa hadday sidaa tahay waa in xaalka noocaasa la hubiyaa oo waxa weeye qaadigoo kale u eegaa gabadhaas ninkeedu xoolaha intaa leg uu leeyahay inta ku filan ee kifaayadeeda ah in la qiyaaso ilaahayna waxa uu liyunfiq duu sacatin min sacati qof waliba inta uu ilaahay u waasiciyey ehelkiisa ha u waasiciyo walidalik ninka bakiilka ilaahay wax siiye waxaanu leenahay allah subxaana watacaala saasuu ku amrayaa ilahay hadduu maalka kuu waasiciye cidda kuugu xaqleh ee kuugu mudan inaad u waasiciso waa ubadkaaga iyo xaaskaaga ayaanu leenahay wallahu aclam
sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed. daawadayaal intaa ayaynu horta kusoo gabagabeynaynaa markan barnaamijkeeni fataawa. runtii su-aalo badan ayaa hor yaalla oo aan u dhiganayo qaybta soo socota ee barnaamijka isla shiikha ayaynu kusoo noqonaynaa mar labaad iyo xalqada soo socota waxa uu ahaa ka jawaabayay su-aalaheeni daawadayaal markan sheekh doctor xasan sheekh cali warsame oo aanu imika ku suganahay maktabadiisa uu ku leeyahay magaalada burco waxaana muuqaalada daawanaysan qaadayay diiriye jaamac cabdi. waxaan halkan uga mahadcelinayaa runtii guddidii iyo dhalinyaradii iyo ducaadkii soo diyaariyay su-aalahan dadka kasoo ururiyey. idinkana insha allah waxaanu idin ballan qaadaynaa inaad kusoo hagaajisaan su-aalihiina aad weydiineysaan shiikha canaawinta hadda aad shaashada ka dheehanaysaan. waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdimaalik muuse coldo. tan iyo intaynu ku kulmi doono xalqada soo socota iyo barnaamijkeena fataawa anagoo idinleh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفداك والله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. يا رسول الله خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. عالي وغالي وحالي أفديه في كل حالي والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله.